بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي حبايبي سلام قالي ahwadii soo marinaya meel waliba adduunka ka joogtaan soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah. maanta waxaan noo wadaa geed maasha Allah oo faa'iido badan inoo leh maxay ahayd inaad ka faa'iideysataan aan rajaynayaa biidni raxmaan. haddii ay tahay marka ugu hore ee channelkeena soo booqanayso waxaa ka codsanaynaa subscribe inoo sameyso insha Allah, gambaleelkana aad taabato si maxay ahayd mar waliba marka wax soo geliya u noqoto daawadaha ugu horeeyo. wajazaakumullahu aljanna. maanta waxaa ka hadlaynaa najmat yansuun ama star anisa u taqaanaan. waa taqaanaan oo maleena bahashaan badanaa waxaa lagu darsadaa cuntooyinka briiski waxyaabahaas lagu darsadaa oo aad u carfisaa, caraf badan ay leedahay maxay ahayd saas awgeed cuntada loogu darsadaa. subxaanallah, waxaan ku yiri carafteeda ayada dhan jikadii qaadatay. marka waxaa ka hadlaynaa maanta geedkan faa'iidada uu inoo leeyahay waxtarkiisa. marka soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah. horta geedkan waxaa la dhahaa star anisa, English lagu dhahaa, carabina waa maxay ahayd ii sheeg najmat yansuun waaye. Soomaali ma aqaan, hadda idinka taqaana waa ii soo qori kartaan. soo ma jeedaan aad u caraf badan yahay. فسبحان الله هرتا وحو هيستا محال لها وحو لي بإله سبحانه وتعالى وسود جي ودول كان او جيد فإذوين بدن بمحي هذا انو جرتو أنا كان اوجين معهنا الحمد لله إلهي ما هاد سكناتي مركا وإنا إلهي الحمد لله سماها محو هيستا هرتا جيد كان سبحان الله اوجيدان فيتامين سي هيستا وحاكلاتو هيستا فيتامين محي هذا أنت أجينا وياهي هدي محي هذا أسقرحنا أو استعماله هدي أو أفكك قاعدنا استعداد أو استعمالنا أو استعماشه وكعاونا يا إن محي هذا جركا وقروح بدنا هذا جر قروح بدن أيالته وأتكان أساسي يعني أكد كذود أما جبو وكوصو نخصده مركو على سوق قرحية وتقارنا أنت مها آد وفي عيات مها وبحيا ودريات مها مشاكلات قبان ودن uu ka caawinayaa skinka sidoo kale hadii skinkaaga ah haysato skin oo yani asaga dhan oo kadkadud iyo waxyaabahaas haysto kale aad uu ku caawinaa wajigu ku taagaya. insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka soo geliyo maskooyin oo wajiga la marsanaayo iyo saliidna inaad ka sameysana saliidiisa sida ugu fudud ee guriga u sameysan kartaan. waan soo gelinayaa taas la socda channelka insha Allah. marka antioxidant wuu yahay geedkan dadka sonkorta qabo aad ugu fiican yahay star anisiga. haddii ay isticmaasho oo qaabka u isticmaalena gadaal ka sheegayna biidni raxmaan aw isticmaasho sonkorta sidoo kale aad ugu fiican yahay. waxa kale oo aad ugu fiican yahay rheumatismka, dadka oo rheumatismka haysto, dadka sidoo kale lafaha xanuunaya ee ka cabanaya lafa xanuunka haddii ahaan lahayd meelaha oo kala gooska, jilbaha, dhabarka waxyaabahaas oo dhan aad buu ugu fiican yahay. haddii aad isticmaashan yani way adkaanaysaa si aad ku hesho lafa xanuun. marka ka warrama soo fiican ma alxamdulillah xamdan kathiran dayyiba mubaarak fiihi. nimcadaas waxay u sugnaatay iyo mahadcelintaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. marka lafa xanuunkaas oo dhan wuu ka hortagayaa. haddii maxay ahayd mar waliba qof isticmaalo aad tahay lafa xanuun inaad qabto يعني مهم ما هنا أو استعماشه حتى كهرتك بويا لفاع وكوسي حوجنا وكوسي أتكنايا. وحكى طول سمايا دتك واوين وكلات ماموين كأبياشين هوياشين وكلات أيوين يعني وحي يقف وين ومركا كل جوج بدنا دتك واوين وعركتين وحي كعوضان لفحنون وحسمينا يسا سليدي سا قبنا يسا لفها ودوجي سا مو مساجين يسا مش حنون يسا حنون كاس دون بحايا ما شاء الله أفكنا ويك قاعدنايان. sidoo kale wuxuu u fiican yahay caloosha dhibta ay qabto dhan calool xanuunka waxa soo dhan u fiican yahay. caloosha sidoo kale oo shanqarto ama maxay ahayd guuxdo calool waxa jirta Soomahan guuxdo oo qeylinayso qofku ku ag fadhiya hada uu maqli karo guuxaas caloosha waxa lagu leeyahay aad ugu fiican tahay. guuxaas oo dhan way ka dhameynaysaa insha Allah isticmaala.
sidoo kale wuxuu u fiican yahay dadka oo casabiyada maaragtay xanaaqa badan leh oo mar walba iska xanaaqayo dadkaas aad ugu fiican yahay waxaa lagu leeyahay dee cabaan waxaad dareemaysaa farxad waxaad dareemaysaa adi dhan habi ya ilaahay farxadda banaga qaado maxay ahaydee marka dadka xanaaqa badan leh iska xanaaqayo bahalkan ha ku dadaala insha allah aad maxay ahaydee inii caawinayaa sidoo kale wuxuu aad ugu fiican yahay hergebka haddii ay hergeb qabto ama waxa samaysa isku steam grace ama isku uumiso wuu ku caawinayaa sanka wasaqda waxyaabahaas ku jiro dhan uu ka soo saarayaa waxaa isugu uumin kartaa distiya dabka saaraysaa biyaha markay ku karkaraan waxaa qaadanaysaa dhowr xabo asi ka mid ah waa ku ridaysaa markay isla soo maxay ahaydee karaan soo qaadanaysaa tuwaala soo qaadanaysaa oo dabkii aa ka damisa biyaha soo qaadanaysaa waa isku huurinaysaa wuxuu sameynayaa wasaqdaas oo kugu xiran oo sankii meelahaas kaaga xiran oo dhan inuu kuu furo sidoo kale wuxuu aad ugu fiican yahay ii sheeg qabowga dadka qabowga gala sidoo kale uu fiican yahay maxay ahayd oo kale wuxuu aad ugu fiican yahay ayagana dadka oo sigaarka cabo maaragteen haddii rabaan inay sigaarkaas ay ka takhalusaan ay iska joojiyaan way adag tahay lagu leeyahay sida isaga joojiyaan marka waxaa sameynaysaa markaa iska joojinaysid xabada soo qaadanaysa oo kana afkaaga gashanaysaa ma tabaysidaa lagu leeyahay sigaarka inaa cabto yacni maskaxdaada ma tabayso aada uga maarmaysaa marka insha allah inaad samaysataan ka faa'iidaan aan rajeynayaa sigaarkan wax xun waayo cudurradu inii horseedaya ka badan sidoo kaleete wuxuu aad ugu fiican yahay maxay ahaydee gabdhaha oo period ku xanuunsado maxay xaydka ama dhiigga caadada u taqaanaan aad ugu fiican yahay ilmagaleenku soo nadiifinaya wasaqdu ka soo saaraya xanuunkaas sidoo kale uu ka yareenaya haddii sidoo kale madax xanuun badan aa qabto oo mar waliba madax xanuun aad dareemayso ama lafa ay ku xanuunaa ama meel ay ku xanuunayso sidoo kale waxaa lagu leeyahay waa xanuun baabi'iyo oo maxay ahayd aad ugu fiican yahay insha allah isticmaal sidoo kale dadka oo maxay ahayd af urka haysto oo afka urkana oo problemka ay tahay ilkaha ciridka aad ugu fiican yahay wuxuu sameynayaa bacteriadaas oo ilkaha ku dhalato oo ciridka ku sameysantay in maxay ahayd uu daweeyo uu sameynayaa waxaa sameynaysaa sida qaabka hadda u sameyn doona le u sameynaysaa la socda insha allah waxaa lagu leeyahay af urkaas uu ka takhalusayaa oo ciridka uu sababayo sidoo kale wuxuu kor u qaadaa difaaca jirka haddii difaaca jirkaaga maxay ahayd uu adag yahay way adkaanaysaa si maxay cudurrada qaar ay ku soo weeraraan waayo waxaa haysataa wax ka difaacaya haysataa laakiin haddii difaaca jirkaaga uu low yahay uu hooseeyo mar waliba waxaa dhacaysa iska dhaaf jirro kalaba hergeb hadduu kugu dhaco xataa inaadan u adkaysan karin oo hergebkaas dhulka uu kula galaayo tacbaan aa la noqonayso marka mar waliba difaaca jirkiina waxa kor u qaadayo ku dadaala si maxaa la dhahaa cudurka jirkaaga soo weeraro looga takhaluso insha allah sidoo kale wuxuu aad ugu fiican yahay dadka dhuun xanuunka qabo dadka oo haysta bahashan maxaa la dhahaa magaceeda maxay ahayd dalqada haysto oo dalqada xanuunaysa oo cuncunayso aad ugu fiican yahay asagana maxay ahayd dalqada sanka sidoo kale dhibaatooyinka sanka nabraha sanka ku sameysmo sidoo kale waxa lagu leeyahay aad iyo aad buu ugu fiican yahay maxay ahayd sidoo kale waxa lagu leeyahay wuxuu kor u qaadaa ama uu xoojiyaa rabitaanka oo jinsiga rabitaanka rag iyo dumarba wuxuu sameynayaa kor u qaadayaa markaasna qofka wuxuu isticmaalayaa sida hadda qaabka anaga u isticmaalayna u sameysanaysa laakiin waqtiga oo maxaa la dhahaa uu rabitaanka uu imaanayo xilligeed taadaa garanaya aa cabaysaa lagu leeyahay 2 saacadood 3 saacadood ka hor marka waxaa dhacaysa in rabitaanka jirkaaga maxaa la dhahaa uu bato inay fahantaan aan rajeynayaa rabitaanku kor u qaada insha allah sidoo kale haddii aad tahay hooyo oo nuujinayso waa isticmaali kartaa maxaa la dhahaa waa cabi kartaa haddii maxay ahayd uur leedahayna mamnuuc ka yahay isticmaali kartid inay fahantaan aan rajeynayaa xabiibaati haddii aad nuujinayso waa isticmaali kartaa laakiin haddii aad uur leedahay bataatanba maxay ahayd ma isticmaali kartid insha allah maxay ahayd marka maxay ahayd inaad faa'iideysateen aan rajeynayaa faa'iidadiisa subxaanallah aad iyo aad u badan tahay intaana kusoo koobaya waa in yar oo maxay ahayd aan soo koobay haddii maanta dhan aan wado
ما maxay ahayd lagama hadli karaa waqtiga baa maxaa la dhahaa ay ugu badanayo inta muhiimka ah waa inii soo qaaday aan isiri walaalaha way ka faa'iideysan karaan marka insha Allah inaa ka faa'iideysataan rajaynaya gabdhihii ay iga sugaayay waxyaabihii kale ee uxaamaha cuntooyinka waxaas dhan way soo socdaan la socda janalka insha Allah rag iyo dumarba maxay ahayd waa ka shaqo galeena haduu Ilaahay yiraahdo si uxaamaheena iyo ragga isbermadooda waxyaabaha lagu kordhiyo waxaas oo dhan waan soo wada Ilaahay subhanahu wa ta'ala and time isio isamxo waa inii soo gelinaya habibaati marka intaana maxay ahayd ku soo gabagabeynaya waa in yar oo aan soo koobay waxyaabo ka sii badanaa ku jiro marka inaa ka faa'iideysano ka faa'iideysataan arajeynaya caafimaadkiina kor u qaado waa in tuugaya mar waliba dad badan ay la soo xiriiro oo walaalo ah habiya ku ahayn inay la soo xiriirtaan maxay ahayd ay iniga faa'iideeyo wixii aan aqaano walaa jirooyinku way badan yihiin waxaasna waxa inoo keenaa waxyaabahan aan cuneyno marka waxyaabahan oo waxtarka leh oo geedahan ah halaga faa'iideysto waqtiyadan dambe waa aragteen dhankaana loo batay caafimaadkiina kor u qaada caafimaadkaaga adaa ka shaqeyn karaayo adaa kor u qaadi karaayo habibaati marka kuwa mar waliba Ilaahay subhanahu wa ta'ala xasuusto oo rabbigooda ku xamdiyo oo ku shukriyo oo laga amaan helo oo wax wanaagsan ku hadlo Ilaahay hanaga dhigo marka qaari baraka inay rajayna hadii aad ka heshaan oo channelkayga aad ka heshay asxaabtaada iyo familkaaga waa la wadaagi kartaa insha Allah maxay ahayd haddii nagu cusub tahayna noo soo dhawo insha Allah subscribe ku qabo oo channelkeena aad ka heshay gambaleelkana furo si aad u noqoto marka video soo geliyo daawadaha ugu horeeyo asxaabteeni hore noola joogtayna hadda like-ta naga dhisa wixii talo iyo tusaale waxa iga baahan tihiin dhanka commentiga wajazaakumullahu jannah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iga raali ahaada sidii loo isticmaalayaan ban hilmaamay biyahan hadda way maxay ahayd kulul yihiin ama way karkarsan yihiin sida u taqaano waxa sameynaysaa dhowr xabaa ku ridanaysaa afar xabaa ku riday waa daboolanaysaa meela iska dhigaysaa mashiidaysa please ha shiidin bahalkan aad shiidid faa'iidadiisa way dhimanaysaa sababtana waxay tahay saliidiisa waxa lagu leeyahay waa xagaas ku haystaa ma sha Allah saliida caadi ah inuu haystaa waa inii soo gelinaya sida saliidii waxyaabaas looga sameeyay hadaa mashiinka la tagtid oo shiidid faa'iidadiisi way qasaartay way dhimatay waxba kuma tarayso biyo karkaraya biyo xataa dabka in la saaro ma wanaagsana lagu leeyahay marka biyo karkaraya soo qaadanaysaa inaad biyo way iga qaboobeen inta inay la hadlaayay dib ma lahan waa ku ridanaysaa dhowr xabo afar xabo ilaa 5 xabo marka ku ridato waa daboolaysaa si qiiqaas uu kaaga bixin oo faa'iidada leh waa ku celinaysaa soo marka waa cabaysaa markuu ku qaboobo waa walaaqaysaa waa cabaysaa baasha hataa hadii afka ku gasho iska dhuuq sida nanac camal oo kale iska dhuuq kadib iska tuf aad uga heli doontaan taas waa la hubaa waa hadii maxaa la dhahaa kan ku fiican uu organic yahay labana waa badana China aad u isticmaasho dhirta waa ogtihiin adinkana Soomaaliya China aad uga yimaada kan China aad uga yimaada aad u fiican yahay la dhahaa maxay ahayd ku kala jiro Japan ka imaado kaas ma fiicna la dhahaa see lagu garan karaa waa si lagu garan karaa Allahu a'lam laakiin waxa ku garan kartaa waxtarka hadii marka aad wado ilaa wiiga uu wax ku taro waa kii fiicna hadii laakiin wax uu ku tiri waa kii fiicna ma aha ku kala raadsan insha Allah marka saas aad u isticmaaleysaan sida qaboobahana waa inii soo sheegay aad u isticmaaleysaan sankii waxaas ina ku furto arabto horaan kaga soo hadlay hadii arabto maalintii waxa cabi kartaa koob weyn leh hadii arabto marka hamigaagina kor ugu qaadi dhanka jinsigana waxa cabaysaa habeenkii ama maalintii waqtiga adii aad falgalayso aduunba ogsama waqtigaas aad cabaysaa adii dawo aad ka rabto waxaan soo sheego dhan waqtiga rabtid ayadana sidoo kale taa cabi kartaa maalintii habeenkii caafimaadkiina kor u qaada khayr baraka rabbiga raxmaanka raxiimka naxariista badan hayni karaame hayni sharfo hayna xifdiyo intaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah